wadana madaxweyne ku soo dhawow Universal TV. waa dhawe. Assalaamu calaykum. Calaykum salaam wa rahmatullah. Waxaan jecelahay mudane madaxweyne aan ku weydiiyo sharar badan baa Soomaalida loo qabtay kalsooni darro ay qaarkood abuureen caalamka ay beesha caalamka ku qabaan. Marka u horeysa beesha caalamka iyo Soomaalidu inay isku aragti noqdaan waxyaalaha aasaaska u ah ummadda Soomaaliyeed ee muqaddasaadkooda in la waardiyeeyo markaad eegtiin maxaa ka soo baxay baa islaada shirka. bismillahi raxmaani raxiim. horta cabdixafiid waa ku salaamay adiga iyo baxda Universal iyo dadka guud ahaan idin daawada. runtii shirkan wuxuu ahaa shirkii saddexaad ee loo qabtay Soomaaliya, laakiin waxaan isleeyahay kan wuxuu uga duwan yahay energy-ga ku jira iyo sida uu u bilowday iyo dowladaha ka soo qayb galay iyo muhiimadda laga leeyahay waxay tahay iyo xaaladda Soomaaliya ku jirto iyo dowladda cusub oo hadda timid waxay igu muuqataa inaan ka faa'iideysan karno shirkan. maxaa yeelay waxaa ka soo qayb galay dowlado fara badan, waxaa ka soo qayb galay oo co-chair ka ahaa secretary generalka xogayaha guud ee qaramada midoobay. runtii energy-ga iyo runtii meesha waxaa ka socday hadalka waxay u eg tahay in Soomaaliya hadda loo soo jeestay oo la rabo in la garab qabto, la gacan qabto, bacdamaa muddo dheer hadda lagu soo jiray Soomaaliya in la xasiliyo oo deganaansho laga abuuro. waxaad moodaa hadda in caalamka uu taagan yahay meel annaga nagu xiran tahay sidaan wax ula qabsan lahayn caalamka, iyaguna ay diyaar noo yihiin siday wax noola qaban lahaayeen. waxaana kow ka ah arrimaha amniga. maxaa yeelay AMISOM hadda waxay joogtaa 10 sano sidaan ognahay. wixiina faray kama qodna oo macnaa runtii waxaa loo baahan yahay in la dhiso ciidan Soomaaliyeed oo hanta difaaca dalka hanta. AMISOMna bacdamaa ay wax badan dalka la qabteen waqtigii la joogo oo iyaguna ay sheegeen Soomaaliya ka baxayaan 2018 iyo 2019 inaan isu diyaarino inaan anagu aan ciidankeena dhisan karno oo isku dhafan aan diyaar u noqon karno inaan difaacano qoladan horarka oo dhibka Soomaaliya ku hayana ay ciidamadeenu ay diyaar u noqdaan inay ku soo celiyaan Soomaaliya amaan ku soo celiyaan. anigoo waliba aan rabo mar labaad inaan ku celiyo waqti waa isbedelay. dhalinyaradan waa dhalinyaradeenni weeye, waa la khalday. waxaan ka codsanayaa mar kale inay dib uga soo noqdaan go-aanka ay qaateen oo khaladka ah oo ah shacabka Soomaaliyeed inay laayaan oo maalmoba isku qarxiyaan dad masaakiin aan waxba galabsan, inay joojiyaan dhibka ay wadaan iyo burburka iyo dhimashada iyo dhaawaca ummadda ay ku hayaan, inay joojiyaan oo ay noo yimaadaan si aan runtii aan u siino waxay u baahan yihiin oo aan ogahay inay tahay kow shaqo iyo waxbarasho iyo runtii inay dib ugu soo noqdaan dalkooda iyo dhismihiisa. waa u baaqayaa mar kale caalamku waa u diyaar garoobay hadda in Soomaaliya nabad laga dhigo. mudane madaxweyne haddaan dib ugu soo noqono gudaha dalka Soomaaliya oo shirkan ka yara tagno waxaa jira maamul goboleedyo dhowr ah qolo walba madaxweyne gaaru maamul goboleed walba leeyahay. waxyaalaha aasaaska oo ummadda Soomaaliyeed sida maalan go'aamada lala qaadanayo wadamada kale oo ama dariska ahaadaan ama meelaha kale ahaadaan waxaa la yidhaahdo travelka ay madaxdaas ay iska aadaan iyadoo inta badan dowladda dhexe aysan ka amar qaadanin. ma kuu muuqataa in go-aano aad ka soo saartaan inaad idinkoo isku duuban qofba meeshuu aaday la is ogyahay laakiin wax walba ay hoos yimaadaan dowladda federaalka Soomaaliya ee aan go'aamo bannaanka laga saxiixin? xaqiiqdii waxaan kuu sheegayaa aniga xiriirka hadda aan la leeyahay dowlad goboleedyadu inuu yahay meeshii ugu sarreysay, in xiriirkeenu uu fiican yahay. waxaana runtii aan ka hadalnaa ama aan isku raacnay inaan ka shaqeyno danta shacabka Soomaaliyeed, danta guud iyo danta dalka inaan ka shaqeyno. waxa weeye waa run, waa maamul, waa loo baahan yahay maamulkooda inuu shaqeeyo oo maamulku uu u gudbo heer tuulo, waa loo baahan yahay. wax dhibaato ah ma laha. arrinta ah dowladda federaalka roolka ay leedahay iyo doorka ay leedahay wuxuu yahay kow dee waa arrimaha dibadda. iyagu naftigoodu waa aaminsan yihiin dowladda federaalka waana ku taageeraan dowladda federaalka inay qaabilsan tahay ma hawsheedu tahay la xiriirka caalamka. saan u sheegay hadda ka hor caalim saarkii aan u sheegay dowladda federaalku waa indhihii
iyaguna waxa weye baalashii ama garbihii dowladda federaalka marka waa isku khasbannahay inaan wada shaqeyno annagoo ka shaqeynayna danta guud ee ummadda soomaaliyeed wax dhibaato ahna kama qabaan arrintaas. waxaan jeclahay inaan su-aasha u dambeysay ku weydiiyo dabeedna adigu aad noo soo koobtid ummadda soomaaliyeed rajo aada u weyn bay markii lagu doortay ay muujiyeen waxaana dhalatay dowlad markii ugu horreysay shacibku ay raalli ka yihiin oo ay rabaan oo ay dareemayaan inay ayagu leeyihiin madaxweyne farmaajo madaxweynenimaduu ku guuleystay riyadaadii way ku suurto gashay shacibkaas ku doortay oo ku jecel oo berito 2020ga codayn doona ma isleedahay access bay ku helayaan oo dad aad tawaaduc u samaysid oo aad ka warqabtid xaaladooda aad ka warqabtid bay noqon doonaan mise sida madaxda qaarkood albaabada aad ka xiranaysaan ummadda soomaalida idinku waa kala go-aysa? runtii dowladnimada la sheego waa shacabka anna taasaan aaminsanahay dowladdan waa dowlad shacab ah waxaan ku shaqeynaa rabitaankoodan ku shaqeynaa awoodda shacabka iska leh taas mar walbana waa ka hadlaa waana ku celinayaa aniga waxaa igu ballana oo aan ballan qaaday in aan awoodda shacabka ku celiyo shacabka iyagaa iska leh dalkan iyagaa iska leh dowladdooda iyagaa iska leh annagu waxaan nahay shaqaale annagu waxaan nahay adeegi taasaa la rabaa siyaasiyiintu inay fahmaan aniga horena waa laygu bartay haddana waa leeyahay shacabka rabitaankoodan ku shaqeyn doona hadduu ilaah yiraahdo iyagaan u shaqeeyaa qof walba oo dowladdan ka mid ahna wuxuu ku khasban yahay inuu shacabka la shaqeeyo iyagana shacabka shaqaa laga rabaa iyaga naftigooda annaga meeshana laga rabo inaan amnigii keenno inaan dowlad wanaag keenno inaan dadka walaaleyno aan ka shaqeyno in sharafkii iyo karaamadii soomaaliya aan soo celinno markaan la dhaqmeyno caalamkan la dhaqmeyno iyagana waxaa laga rabaa shacabka inay dowladdooda la shaqeeyaan inay ammaanka kala shaqeeyaan inay dhaqaalaha iyo canshuuraha dowladda waxay ku shaqeysaa waxa weeye wixii dadka laga soo qaado inay wixii ay dhiibaan canshuuraha annagana waxaan laga rabaa ammaanadaas oo mar walbaan ka hadalno inaan ilaalino ammaanada u ilaalino oo aan kow waxbarashadii qayb ahaanan ka soo celinno inaan caafimaadkii soo celinno maxaan ku irahda biyihii nadiifka inaan soo celinno jidadkii inaan dhisno waxaasoo adeega waxaa laga rabaa dowladda federaalka laga rabaa ama dowladdeeda laga rabaa waxa ugu horeeyana waa cadaaladda in shacabkaasi marnaba aysan dareemin in dowladdan ay ku takrifalayso marka insha allah hawshu hawl sahlan ma aha laakiin shacabka waxaan ka codsanayaa inayna siiyaan waktigaasna annagu wixii aan ballan qaadnay insha allah waa fulnayna hadduu ilaah yiraahdo. madaxweyne aad iyo aad baan kugu mahad celinayaa qayb qaadashadaada waraysigan gaarka mahadsantahay.